dhammaantood waa taageerayaal waana maalintii koobaad ee ololaha doorashada ururka ka tanna waa Hargeysa si la mid ah iyada ayaa magaalooyinka kale ee dalka la isugu soo baxay Burco Berbera iyo Gabiley ilaa Boorama iyo Cerigabo Somaliland marka la joogo waa sunno siyaasadeed in urur kasta uu ku xogan yahay deegaanka ay ka soo jeedaan hoggaanka ururka ama xisbigu waxaynu eegaynaa sababta ololaha ururka ka uu saaka u luxdanaa si gaar ah magaalada Hargeysa oo kumanaan duub cas ay isugu soo baxeen inagoo istul taagayna dhowr qodob oo arrintan suurta galiyay marka laga yimaado saameynta siyaasadeed ee lagu tilmaamo inuu gudaha ku leeyahay gudoomiyaha ururkan Maxamuud Xaashi Cabdi waxa jira dhowr qodob oo saaka sabab u ahaa in taageerayaasha ururkan ay isugu soo baxaan isla markaasina ay camiraan fagaaraha beerta xorriyadda ee Hargeysa isbahaysigii siyaasadeed ee ururkan uu la sameeyay musharax madaxweyne ee xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Cirro ayaa lagu tilmaami karaa talaabada koobaad ee saameynta gaarka ah u sameysay ururka ka tan iyo markii ay gaashaan buurta siyaasadeed sameysteen ururka ka iyo xisbiga wadani bishii Agoosto ee sanadkan waxa ay taageerayaasha labada dhinac u furtay dhaba ay ka wada duuli karaan iyo kal ay isugu lamaanin karaan ololaha doorasho ee Cirro iyo Xaashi ololaha saaka ee ururkan waxa qayb weyn ka ahaa boqolaal taageerayaal ah oo codka madaxweynaha la doonaya in ay ku soo saaraan musharaxa madaxweyne ee Cabdiraxmaan Cirro ka xisbigana la doonaya in ay ku soo saaraan ururka uu hogaamiye Maxamuud Xaashi laba hoggaanka ururka oo la wadaagay Xaashi iyo xildhibaanada u gaarka ah ee taabacsan ururkan xilli horeba ururka ka ayaa u muuqday inuu sii dhigtay qorshe siyaasadeed oo uu doonayo inuu isugu keeno siyaasiyiin miisaan ku leh saaxadda siyaasadda Somaliland oo codad ka keeni kara deegaanada ay ka soo jeedaan kuwaas oo wax ku leh hogaaminta ururka ka ayaa dhawaan hogaamiye u doortay ninka lagu magacaabo siyaasi qabyatire oo xilal hore ka soo qabtay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo waxana uu saaka qayb ka ahaa ololihii caasimadda Hargeysa saddex xildhibaanada golaha wakiilada ee taabacsan ururkan oo qayb weyn ka ah ololaha doorashada xildhibaanada ayaa u badan dhalinyaro 3 sano ka horna waxa ay soo tijaabiyeen kana soo gudbeen doorasho la mid ah tan oo is saar ah waxa iyagana lagu tilmaami karaa qodob kale oo naaxiyay isu soo baxyadii ururkan uu saaka ka sameeyay gobolada kala duwan ee dalka afar go'aamadii dhawaan ka soo baxay cilif weyn ee ay soo saareen madax dhaqameed ka mid ah beelaha Somaliland ayaa ah qodob kale oo dabka ku sii shaday taageerayaasha iyo dadka taabacsan siyaasad ahaan ururkan kuwaas oo saaka suurta galiyay in kumanaan qof ay isugu soo baxaan barxadaha kala duwan ee magaalooyinka waaweyn ee Somaliland maadaama go'aamadii cilif weyn ka soo baxay uu si gaar ah ururkan ugu xusnaa in xisbinimo loo gudbiyo marka qodobadaasi la isku soo xooriyo waxa ay tilmaamayaan in ururada siyaasadda Somaliland laftigoodu ay u kala saameyn badnaan doonaan isla markaasina ay si xujeyn doonaan inta lagu jiro ololaha doorashada galaangalka iyo garabyada ay sameystaan si la mid ah sida murashaxiinta madaxweynaha doonaya ay galaangalkaasi u sameynayaan